qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa la gaarsiiyay dharka ciida. Dhaqaalaha lagu iibiyay dharka ciida ee caruurtan danyarta ah ayaa waxaa dhiibay xubnaha ururka Alpha Trust ee ku nool wadamada adduunka. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo caruurtii la gaarsiiyay dharka ciida oo la hadlay telefishinka Dalsan ayaa u mahadceliyay ururka Alpha Trust. waan ducaynayaa khayr Allah siiyo xasanaad bay shaqaysteen ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay ka jisaysiiyo ilaahay abaalmarinta ha siiyo waan ducaynaynaa inamada ka waran dharka ciidii la idin keenay ka waran way fiican yihiin wallahi dhammaan haysana dalay baan hay ilaahay ba xaalkayga ugu ciyalkayga waa goon wallahi marka alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ba mahad inagana ilaahay ba inaga abaalmarinaya jaaliya khayr هاد علمنا دتك نوغو داقي دharka ciida gaar ahaan ururka Alpha Trust. Assalamu alaykum waxaan ka salaamayaa dadka deeqda soo gaarsiiyay ciid ciyaalka waan ku faraxsanahay ciyaalka ma sha Allah waan soo ducaynaa inagana inaad deeqda ubadka soo gaarsiiseen aadeen daryeelka aad dharka ciyaalka la soo siiyay ma sha Allah ciid mubaarak baan leenahay. Alaykum marka hore waan imaadnaqnaa hambaliyo ما شاء الله ما شاء الله الله يباركه وانا بليلنا ما شاء الله الله بركه ها هو ودني مقنقينا بقولكي بقول ما دبا دharkii ciidna soo gaareen ma hadalla bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadleh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa ururka Alpha Trust oo maanta deeq kamida deeqiga soo gaarsiiyay caruurta baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan ama ku nool magaalada Boorama oo ay kamid yihiin caruurta naafada deeqda ay soo gaarsiiyeen oo ka koobnayd dharkii ciida oo inamo iyo hablaba aha. Dhanka kale wakiilka ururka Alpha Trust ee dalka Canada Maxamed Aadan Cilmi oo la hadlay telefishinka Dalsan ayaa sheegay in mar walba ay u taagan yihiin caawinta dadka danyarta ah. waxaan mar walba u taaganahay in aan garab istaagno qoysaska danyarta ah. ururka Alpha Trust waa urur Soomaaliyeed oo mar walba taageera caruurta naafada ah iyo kuwa dhibaataysan. wuxuu ururka Alpha Trust ka howlgalaa dhammaan gobolada kala duwan ee dhulka hooyo. ururka Alpha Trust ayaa ka mid ah ururada Soomaalida ee sida gaarka ah uga dhex muuqda bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan marka ay timaado arrimaha samafalka iyadoo mas'uuliyiinta ururka ay sheegeen in ay sii ballaarin doonaan barnaamijyada samafalka ah ee ay ka wadaan dhulka hooyo. Maxamed Cabdi Xasan Iidil raadiyaha telefishinka Dalsan.